dadkii markii la dhibaateeyo oo la laayo waxbad la dhaco adna aan madaxweyne u ah طبعا waa inaad difaacdahay meesha way ku jirtaa Soomaa laakiin su'aashaas hadda waxay u taallaa madaxda meesha hadda joogto oo Puntland hadda la weydiiyo waaye dadkuna waxa ay ka rabaan dadka soo sanaaga iyo gaar ahaan dadka maanta la ascaana joogahay waxa ay ka rabaan rabitaanka waxa Puntland ka rabaan ayaa rabaa inay sheegaan suuq shacbi ogow hadee madaxweyne Musabbixi shalay dad la sidoo kale si nabad ah oo u banaan baxay oo la doorasho rabna ayuu Hargeysa ku leeynay marka sanad waxa tiraahdaa leeyahay hooyadii dilay ayada har uma jiido marka dadkaasi dib weyn ayaa muddo haysatay 15 sano ayaa dadka oo labeentoodii la dilay arinta marka Soomaaliya sanaga yacayn anigu fikirka ka aaminsanahay waxa weeye dadkaasi masiirkooda ayaa u madax banaan in ayaga waxa ay doonaan haday doonaan dawlad goboleed gaar ha noqdaan haday rabaan cid doonaan ku biiraan haday doonaan yani ha noqdaan dawladda dhexe hoos yimaadaan sool oo dad badan lagu laayo oo Soomaali ah oo dhiigooda maanta uu ku qabanayo iyaguna banaanbaxyo ay ka sameynayaan maxaad isleedahay maxay horta colaadaas iyo dadkaas dhimanaya maxaa u sabab ah walaalay arintaas waa symbol meesha waxa ka dhacay xasuuq shacbi ogow hadee madaxweyne Musabbixi shalay dad la sidoo kale si nabad ah oo u banaan baxay oo la doorasho rabna ayuu Hargeysa ku leeynay marka sanad waxa tiraahdaa leeyahay hooyadii dilay ayada har uma jiido marka dadkaasi dib weyn ayaa muddo haysatay 15 sano ayaa dadka oo labeentoodii la dilay cid baana sheeganaysa inay mas'uul ka tahay iyadu dhulkaasi ay kala gareynayso oo anaga xukunno dawladka waxa maanta dadkaas lagu leynayaa calankii buluuga ah bay kor u sideen oo ilaahay anagu Soomaali baan nahay Soomaali ma rabnaa dilka iyo dhibtan hana la ka daayo si peaceful u mudaharaadayeen nabada xabad baa la dhacay brown baa la waxaan bogaadinayaa dad badan oo reer Soomaaliland oo isma kamid yihiin oo culimo kamid tahay oo gudoomiyaha xisbiga oo mataqaana maxaa la yiraahdaa Faisal maya oo kamid yahay Soomaaliland oo kamid yahay ay arrinta ka hadleen kana xumaadeen dhibta dadka lagu hayo arinta marka Soomaaliya sanaga yacayn anigu fikirka ka aaminsanahay waxa weeye dadkaasi masiirkooda ayaa u madax banaan in ayaga waxa ay doonaan haday doonaan dawlad goboleed gaar ha noqdaan haday rabaan cid doonaan ku biiraan haday doonaan yani ha noqdaan dawladda dhexe hoos yimaadaan dadkaasi in ayaga masiirkooda loo daayo oo la yiraahdo kaleemkan hadda isku haysadkaaho ay ku dhibtoodeen aad ugu dhibtoodeen in yani ayaga u madax banaan in masiirkooda la weydiiyo ayaguna ka tashada xaq bayna u leeyihiin in maanta lagu khasbi karo aniga ku dawladeynaya anaa ku xukumaya hadii kan xabad baan yani dawladda ka gelinaya de sax maaha aduu meeshu maanta u maraya iyo meesha la joogo waxaas waa ay dhamaatay marka dadkaasi dib baa gaartay aad xun waan cambaaraynaa wax hadda ka dhacayo lagu sameynayo waxaan rajaynayaa in caqligu shaqeeyo dadkaasna loo ogolaado masiirkooda الله ونحرسته علي خليف قلير قاتم مدحوينه كاها xilligii 2014 maruu hadlayay wuxuu yiri marka la fiiriyo labada maamul ee wadaaga aan nahay Puntland iyo Somaliland ka qaatum ahaan inaan maamul noqono oo meel istaagno Somaliland baa noogu dhaw reer Puntland waxay rabaan inaan kamid ahaano waxba nooma ogola adiga waxaad leedahay dadkii hala madax baneeyo ma aaminsan tahay maamul madax banaan oo adinkana shaqo idin ku leeyahay Somaliland aan shaqo ku lahayn oo meel taagan inuu noqdo boqolkiiba boqol dadkaasi in loo ogolaado masiirkooda oo hadda maamul goboleed ayagu ay leeyihiin ay sameystaan soo sanaga yacayn boqolkiiba boqol baan ugu taageeraya mideeda kale cali khaliif Puntland ma ahayn cidii ku weerartay taleex cidii ku weerartay meesha la yiraahdo saxdheer cidii maalba eryenaysay oo god ku galaba ka saaraysay ma ahayn Puntland waxa ay Somaliland aan ogolayn inuu hadal ka yiraahdo aan u ogolaan jirinin in uu ka abuuro marna Puntland khaatimo kuma duulin ma fahamtay ogolaanshaha ah khaatimo
ma matashaa shacbiga sool sanaaga cayn waa ishii kale markaa jiray laakiin hadda meesha ay marayso ya haddii marka cid difaacaysa aysan jirin dadkan qolana ay dhibaataynayso qolo kaloo difaacayso oo ka celinayso oranayso dadkaani dhibta lagu hayaahe sax maaha ha joogsato haddaysan jirinin oo u gurmanaysa dabcan dee waa khasab in la yidhaahdo dadka masiirkooda ha loo ogolaado masiirkooda iyaguna ha tashadaan hadday iyagu saa doonayaan wey waxaan leeyahay iyaga ha la weydiiyo beri aftaha laga qaado meeshay doonaan ha loo ogolaado inay aadaan deegaanadaas hadda laascaan oo kale sool iyo sanaag marka hore gacan ku haynteeda Puntland waxa iska lahaa maamulka Puntland hadda gacantiina way ka baxday maxay tahay sababta waana tirsataan waa maamulada Puntland ay awood ku leedahay intaas oo gobolaan mas'uul ka ahay waa sax dabcan waxa weeye way jirtaa dul badan oo hadda Sooria sanaag moogta kaliya ma laascaane dul badan oo Sooria sanaag aynaho hadda yani ciidan ahaan iyo awood ahaan Puntland ay aad u joogta ayaa jira laakiin waa run eedaasna anigu hadda nin ka gabanaya maahi oo qaybo badan oo kamid ah ilaa laga soo bilaabo maxaa la yiraahdaa ilaa waqtigii xataa Abdullahi Yusuf aadayay dowladda federaalka laga soo bilaabo ilaa cadde waa run waa soo durkayeen maalin meel bay imaanayeen ma fahamtay marka eedaasi yani waa mas'uuliyadeeda kulleeda waa la qaadanayaa in wax laga gaban karo ma aha laakiin hadda waxa joogta waxa weeye Puntland Somaliland ma bahaba ma fahamtay iyana hadda meesha ay marayaan dadkani waxay ila tahay ra'yi caamkoodu inuu badan yahay in ay dadkaasi masiirkooda loo madax banaaneeyo waana ku taageeray arrintan anigu maamulka Puntland markii horena bahayay ama deegaanadii hadda qaar ka mid yihiin dad Soomaaliyada wada dhashan ay yihiin maamulna maanta ayaga ay yihiin oo dadkan banaan baxay ay leeyihiin dhibaataan haysato maxaa looga baahan yahay door intee la egay ku leeyihiin horta arrintan marka la yiraahdo ama madaxweyne dani ama shacabkaba wallahi dadkaas horta waxa weeyaan in la difaaco waa muhiim haddaad sheeganayso in adigu aad xukunto dabcan naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda sharaftooda mas'uuliyad baa ka saaran marka dawladda marka jirtaa waa inay difaacda dadka markii la dhibaateeyo oo la laayo xabad la dhaco adna aan madaxweyne u ah dabcan waa inaad difaacdaa meesha way ku jirtaa Soomaa laakiin su'aashaas hadda waxay u taallaa madaxda meesha hadda joogto oo Puntland in hadda la weydiiyo waaye dadkuna waxa ay ka rabaan dadka Sool sanaaga iyo gaar ahaan dadka maanta laascaana joogahay waxa ay ka rabaan rabitaanka waxa Puntland ka rabaan ayaa rabaa inay sheegaan jawaabtana waxa laga rabaa maamulka markaa jiro hadda jooga madaxweyne Muuse Bixi Somaliland wuu hadlay wuxuuna hadalkiisa ka muuqday in gacan saddexaad iyo dad raba inay dadkii walaalaha wada deganaa isku diraan inay ka faa'iideysanayaan iyada laftirkeeda iyo hadalka qoraalkii uu soo saaray madaxweyne Xasan Sheekh oo uu leeyahay Somaliland iyo dadkii in la xasiliyo maxay kula muuqataa wallahi hadalkaas waa hadal meel waayay weeye sababtoo inay madaxweyne meesha joogo oo dadkiisii ay dhimanayaan oo ciidankiisii ay dadka laynayaan ayagu muuse taa lagama rabo waxa la rabaa in aad xabadda ka jooji dadka ciidankana ka saar magaalada dadkuna u ogolow xorriyadooda iyo rabitaankooda shalay waxaad ka carartay maamul aad leedahay qabiil ahaan buu noo dhibaateeyey maamul aad leedahay deegaan ahaan buu noo dhibaateeyey dadka ka cararay buu ka mid ahaa oo ka tegey ma fahamtay taariikhna muuse bixi runtii uma leh wanaag iyo nabad iyo nin hadda lagu yaqaan ka tiriya ma aha يعني dhibaatooyin badan buu ka geeso la socotaa boorama iyo dila iyo dadka lagu laayay 1993 aad loogu laayay kasoo arintaas aan aad looga hadlin marka haddana Hargeysa oo dadku ka dhashay laftigiisa oo dhex joogay oo reerka hoose wada ahaayeen ayay markay barnaamijyada war doorasho qabo ku darsi ma jire ayuu xabad la dhacay marka hadal uu iska yiri cid baa cid ayay tahay adaa la rabaa inaad sheegtid yihiin magacaaw مسؤولية دابا شيء مسؤولية كاس عارنة يا دير يا دات كان هذا وكان ويدي يي هو هذا مركا وحاسب دولة دحين دولة دحين دولة دحين أنا وحنا لا هاي فيري دولة دحين برايورتي دورته ومسبليس أو خلدني هاي سببته سوماليلاند فهمتي أنا هذا فكر كيجوا يعبدوا ريحان مصر صعته ما الإيمان سوايه إن بدنا نوان شيء سببته nin hadda Somaliland jooga madaxweyne ka ah oo oran kara Somaliland ku biiranana ma jiro nin xamar jooga oo oran kara Somaliland ha go'daana ma jiro marka waxa gacmo daaris weey laakiin Maxamed Xasan wuxuu u madaxweyne u yahay dadka Soomaaliyeed ee calanka buluuga haysta meel kasta jooga Soomaa dadka laasana jooga calanka buluuga ay taagayeen
buntlandna ma taagay somalilandna ma taagay muxuu marka mas-uuliyadda maxaa looga gabanaya